waa dhawahay Emirates Lab Soomaaliya waxaan ka mid ahay gabdhaha ka qalin jabiye kana shaqeysto civil engineering. سامية سعيد علي waa mid ka mid ah injineerada gabdhaha ee da'deeda ee u soo baxay Soomaaliya. Samiya ayaa yaraanteedii ku soo barbaartay isu taga Imaaraadka Carabta waxayna ku dhalisay markii ay soo laabatay inay ka fikirto barashada engineering si ay qayb uga qaadato Soomaaliyada maanta ku jirta dib u kabashada. 1999kii anigii iyo familkayga waxaan u guurnay isu taga Imaaraadka Carabta magaalada Cajmaan meeshaas oo aan ka soo bartay primary schoolka iyo waxbarashadeeda dhexe. kadib wadanka waxaan ku soo laabtay 2009 kadib waxaan ku biiray jaamacadda Banaadir anigoo sii dhiganayo fieldiga engineeringka waqtigaasna oo weli aan common ahayn aw macruuf ahayn in gabdhaha ay dhigtaan kulliyadda engineeringka. waa wax iska caadi ah markaad ku jirto waxbarasho ama shaqo ee dadkan ku arkaa inaadan ku habboonayn marka aad tahay gabar aad joogto Soomaaliya. waa wax adag in oo fieldiga gabdhaha ay ku yar yihiin in aad barato laakiin waxaa igu dhiirigeliyey baahidii beledkeenii u qabtay dhismihii markaasayta waqtigii oo weli burburkii ay jirtay wadankii weli aanan dhismo fiican ka jirin iyo micnaha aragtidii aan u soo arkay wadankii aan ku noolaay isu taga Imaaraadka Carabta. waxbarashadeeda kadib waxaan bilaabay inaan shaqeeyo waxaan u shaqeeyay goobo badan ay ka mid yihiin shirkado oo dhismo waxaana taas igaga caawiyeen inaan ka qayb galo oo ka mid noqdo mashaariicda ugu waaweyn beledkayga laga dhisaayo oo ka mid ay tahay Ministry of Finance wasaaradda oo maaliyadda. sidoo kale waxaan ka mid ahay tiimkii oo ka qayb qaatay immigrationka headquarterka immigrationka Soomaaliya laga dhisay. Samiya ayaa ku haminaysa inay qayb ka qaadato dib u dhiska dalkan dakhrada badan ay ka soo gaareen dagaaladii sokeeyay si Soomaaliya ay ula mid noqoto wadamada kale. waana rajaynaa waana dhici beednillaah 10 sano soo socdo wadankeeni inuu noqon doono wadankii maanta la dhihi karo magaalada Bismaahan Soomaali dhan inay maanta quruxdiisa laga sheekeeyo loo imaado dalxiis. waxaana ii farxad ah inaan qayb ka ahay mustaqbalka ifaayo Soomaali soo socdo insha Allah. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan waxaan kaa codsanaynaa inaad sii shargareyso aad la wadaagto saaxiibada haddii aad nagu cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto aad follow gareyso boggeena baraha bulshada sida Facebook, Instagram, YouTube iyo TikTok.